Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada jalka maalmaha. Deeqsinimadu waa sifo ka mid ah sifooyinka uu Allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamo naftiisa, waxayna qayb weyn ka tahay akhlaaqda wanaagsan ee diinta islaamka noo jidaysay. Deeqsinimadu waa bixinta wax kasta ee laga faa'iideysan karo, ha noqoto hanti, quudin ama kelimad wanaagsan ood qof ku tiraahdo. Sidoo kale deeqsinimadu waa akhlaaqda rasuusha Allah uu soo diray ay la yimideen, waxaana ugu horeeya rasuulkeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa mid ay dabeecadiisu tahay deeqsinimo, waxaana lagu tilmaami jiray in uu ahaa ruux aan dadka waxba ka baqiilin, gacantiisuna ay furan tahay. Deeqsinimadu inta badan waxa ay ruuxa ka dhigtaa bulshada dhexdeeda mid ku leh qiimo iyo qadarin, wuxuuna ku siyaadsadaa jacayl fara badan, maadaama qulubta dadka lagu dabeeceeyay in ay jeclaato qofka markasta u wanaag sameeya. Gacan furnaanshadu waxa ay qayb weyn ka qaadataa in bulshadu uu ku yimaado isbeddel la taaban karo. Markii uu ku batana bulshada dhexdeeda in la helo dad dhaqankoodu uu yahay in ay wax bixiyaan ama ay isugu kaalmeeyaan waxyaabaha wanaagsan ee uu Allah raali ka yahay, waxaa dhici karta in uu yimaado horumar wanaagsan iyo isgacan qabasho u horseeda horusocod wanaagsan. Sidoo kale waxaa ziyaada isjaceelka bulshada, maadaama ay noqdeen kuwo ka shaqeeya musaacadada, khayrka iyo waxbixinta. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in Allah uu jecel yahay ruuxa ku sifooba deeqsinimada, wuxuuna xadiid ku yidhi rasuulka, Allah waa kariim, wuxuuna jecel yahay deeqsinimada. Inta badan shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa in uu yahay shacab ku wanaagsan xagga istaageeridda iyo deeqsinimada. Taasina waxa ay tusinaysaa in dhaqan ahaan uu yahay mid ku tiirsan xagga diinta iyo akhlaaqda islaamka. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay, wax kasta oo khayr ah aad bixisaan Allah waa uu idin gudayaa. Deeqsinimada ruuxa waxa ay u dhoweysaa jannada, waxa ayna ka fogeysaa naarta. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, ruuxa deeqsiga ah waa mid Allah, jannada iyo dadka u dhow, waana mid ka dheer naarta. Haddaba maxay tahay waxyaabaha kugu saacidi karo in aad noqoto ruux deeqsi ah? Waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku horseedi kara in aad noqoto ruux deeqsi ah waxaa ka mid ah, haddii aad ruuxa muslimka ah u dooratid waxa aad naftaada la jeceshahay, waxa ay ku gaarsiinaysaa in aad hesho iimaan wanaagsan. Taasina waa midda uu ruuxa muslimka uu doonayo. In aad ka qayb qaadatid waxyaabaha khayrka ah waa sifaadkii ambiyada Allah uu ku ammaanay. Sidoo kale deeqsinimadu waxa ay ka qayb qaadataa in la helo horumar, xasilooni, isdhexgal iyo isjecel dhab ah. In aad xasuusato qiimaha iyo darajada uu ruuxa deeqsiga ah ku leeyahay Allah agtii iyo waxa uu u diyaariyey maalinta qiyaamaha. Sidoo kale ruuxa deeqsiga ah waa mid alle agtii laga jecel yahay, bulshadana ku leh qiimo aad u weyn. Gabagabadii, deeqsinimadu waxa ay keentaa in ruuxa loo barkeeyo risqigiisa, Allahna uu ku siiyo ajar fara badan maalinta qiyaamaha. Sidaa darteed waxaad ka caado yeelataa inaad noqoto ruux kasbada ajar fara badan maalinta qiyaamahana ku hela abaalmarinta Allah.